Saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo daraawiishta Galmudug ayaa wadajir u sheegay in howlgal ka dhacay koonfurta gobolkaasi lagu qabtay 5 xubnood oo ka tirsan maleeshiyaadka Al-shabaab oo u qaabilsanaa dhanka maaliyadda. Howlgalkan waxa uu si gaar ah uga dhacay inta u dhaxaysa deegaanada Xinlabbi iyo Baraag Ciise ee koonfurta gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Galmudug. 5 ruux ay dowladda Soomaaliya sheegtay in loo gudbinayo maxkamad. Dowladda Federaalk Soomaaliya iyo maamulka Galmudug ma sheegin magacyada 5 ruux ee Al-shabaab u qaabilsan qaadista lacagaha dhanka maaliyadda, sidoo kale sooma bandhigin sawirada raggan lagu soo qabtay howlgalkaas. Saraakiishan ka tirsan dowladda Federaalk Soomaaliya iyo daraawiishta Galmudug ayaa shaaciyay in ay gacanta ku dhigeen gaari nooca raaxada ah, gaar ahaan Toyota Land Cruiser oo dadka qaar ay u garanayaan Leila Calawi. Ciidamada dowladda Federaalk Soomaaliya, daraawiishta Galmudug iyo dadka deegaanka oo isu kaashaday howlgallada ka socda gobollada Mudug iyo Galgaduud ayaa sheegay in xayiraad lagu soo rogay degmooyinka iyo deegaanada weli ay maamulaan kooxda Al-shabaab.